through touching messages on social media and heartfelt statements. maxaad kala socotaa ciddii ka dambaysay dilka moodaliistaha fanaanka iyo aktarka caanka ee loo yaqaano Mombin Astro? waa kuma dilaaga qarsoon kaasoo dilay fanaankan haddana ku raad joogo misana u hanjabay xidigaha iyo fanaaniinta BTS Jimin iyo ninka loo yaqaano Jungkook? shaki mise xaqiiqo? maxay yihiin dadka aaminsan in maareeyaha shirkadda entertainmentiga ee Fantagio qayb ka yahay ama wax ka og yahay dhacdooyinkan? xaasidnimo, nacasnimo mise kaftan? maxay tahay dadka ku dheeldheelaya ama kaftanka ka dhiganaya dhimashada fanaankan? mase la socota inuu hormuud u yahay raabarka aadka looga jecel yahay gudaha Maraykanka ninka loo yaqaano DJ Khaled? sidee ayayse macquul ku noqotay inuu yeesho qofku cadow kadib markii uu dhinto? intaas iyo qodobo kale oo xiiso leh ayaan ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena maanta, balse ka hor waxaan rabaa inaan idinka mahadceliyo sida quruxda badan aad ula falgashaan mar kasta muuqaaladeena idinkoo la garanaya subscribe-ta ayuu ku soo biiray YouTube-keena Baldaab TV. waxaan idin leeyahay waan idin ogaayay midaasi mahadsanidin saaxiibayaal. Singer's residence. After finding out Moonbin was unresponsive, his manager called the waxay ahayd 19 bishan April, arbacadii wiigii dhammaaday xilli fiidnimaha markii ay caddaatay in la dilay fanaanka iyo jilaaga aadka loo jecel yahay waqtigan ninka lagu magacaabo Mombin Astro. haddaba inta aynan si weyn u dhexgelin sheekadaasi, si aan isula fahanno marka hore aan isweydiinno waa kuma fanaankan dilkiisu gabi ahaanba qabsaday wiigan baraha bulshada. Mombin wuxuu ahaa aktar iyo jilaa filim sameeye, heesaa iyo weliba moodaliista looga dambeeyo dhanka xayisiinta dharka. sidoo kale wuxuu ku dhashay bishii January 26 1998 oo gobolka Jamboog ee isla dalkaasi South Korea. waxaa la dhalatay nin ka daayar kana hooseysa 2 sano oo la yiraahdo Monzoa, kana tirsan kooxda gabdhaha fanaaniinta ee loo yaqaano Billy. waxuu ka qalin jabiyay Hunty Multi School oo goob laga barto noocyada kala duwan ee fanka iyo muusiga 2019. intii u dhaxaysay ilaa 2020 wuxuu si weyn uga soo muuqday musalsalada Koreanka, waxaana xoojiyay dhankiisa jeelinka aflaamta si la mid ah modelka iyo xayeysiimaha. ugu dambeynna wuxuu ka tirsanaa oo si weyn loogu bartay kooxda wiilasha Koreanka ee loo yaqaano Astro. waxaan filayaa intaasi gabi ahaanba inoogu filan tahay aqoon dhanka noloshiisa. haddaba fanaankan isagoo mayda ayaa laga helay gurigiisa fiidnimadii habeenkii arbacada ayna dhaaftay, iyadoo la ogeyn gabi ahaanba waxa uu isu dilo amaba sababteeda lahan karta. waxaana lagu eedeeyay isla markiiba inuu isagu isdilay oo sidaasi qudha isku dhaafiyey. haddaba balaan isweydiino, maxaa markii la baadhay soo baxay? maxaa laga yidhi dhimashadiisa? yaa ka dambeeyey dilkiisa? maxaa meesha soo geliyey fanaaniinta iyo xidigaha kooxda Koreanka ee loo yaqaano BTS? maxaase iska galay labadaasi sheeko? Moonbin Astro's funeral process on April 22nd at 8 o'clock Korea Standard Time has waxay ahayd sidii aan hore u soo sheegnay 19 bishan April xilli fiidnimaha kadib markii uu soo galay baraha bulshada warka naxdinta leh markii uu horeysay kaasoo ay soo saartay shirkadda Fantagio ee uu la shaqeeyo fanaankani. qoraalka uu qeexayay dhimashada fanaanka ayaa u dhignaa sidan: runtii ugu dambeyn Mombin waa uu naga tegay isagoo noo ahaa xidig iyo fanaan qiimo weyn kale agteena. waa run midani waa ayna taabatay, maaha anagu kaliya, balse waxay xanuun ku tahay dhimashada Mombin cid kasta oo jecel iyo asxaabtiisii, xubnaha Astro oo dhan, familkiisa iyo qof kasta oo aqoon u lahaa. waana hubaal inuu hadalkani gabi ahaanba aan idinka dhaadhici doonin, balse ugu dambeyn Mombin waa uu dhintay. waxaa taageerayaashu markiiba ka muujiyeen arrintani walaac iyo rumaysi darro, iyagoo malaha u arkay baraankii, sidoo kalena aamini lahaa hadal kaga soo yeedhay shirkaddaasi Fantagio.
si la midana waxay sheegayaan taageerayaashani in la dilay fanaanka balse aanu isdilin isagu sida xataa ka muuqata hadalka taageerahan isagoo yidhi It's crazy tani waa waale xataa ma lahayn xanuun maskaxiyeena ama isku buuqa wuxuu ahaa qof markasta ka fakaraya mustaqbalkiisa oo faraxsan macquul ma aha sidani gabi ahaanba inay ku dhacdo Moonbin waana run oo xataa sida ugu jirtay qorshaha iyo kalendarka maalinimadii Khamiistii ku soo aadanayd waxa uu diyaar garoobay fanaankani la kulanka qaar ka mid ah asxaabtiisa iyo faniskiisa oo la lahaa gabi ahaanba casho iyo balan mana ay jirin sabab uu isu dhaafiyo nafta ama baysu dilo. However, he promised Aroha that he would recover soon. Moonbin's departure was suspected. Haddaba waxa cajiib noqotay fanaankani markii uu dhintay inuu yeeshay haters badan kuwaas oo dhimashadiisii ka sameeyay challenge sida idinka muuqata qoraaladan oo ah Moonbin was found at the age of 25. Moonbin waxa uu rawaxay isagoo 25 jir ah ama ninka yar waxa uu iska dhintay isagoo 25 jir ah xataa u fiirso waxa soo galiyay bartiisa ninka la yiraahdo DJ Khaled oo gabi ahaanba aan laga filanaynin oo qof kastana la yaabay xaqnimadiisa waayo dhimashada qof ma gasho qosol iyo maad oo midna halka qaar kalena leeyihiin ninkani ma lahayn wax talentiya maxay dhimashadiisa qiimo leedahay ama laga wadwadaa ha iska dhinto hadduu doono taasoo qof kasta isweydiiyay maxay tahay cadaawada loo qabo qof dhintay ee laga faa'iideeyo anigu xataa waan la yaabanahay waayo waxaan arkay boqolaal commenti oo fani ah lagagana dhiganaya dhimashada fanaankani si kibir ah iyo xaraabo taasoo gabi ahaanba aan u qalmin oo qof dhintay qaar ka mid ah waxay soo qaadanayaan hadalkan iyo eriyadan yar ay leeyihiin ninkan wuxuu ku dhintay ama iskaga baqtiyay isagoo 25 jir ah halka qaar kale soo qaadanayaan sawirro bombala oo gabi ahaanba muujinaya sida uu yahay qof bilaa qiimo taasoo aan marnaba laga filanaynin fanaankani in loo adeegsan karo. Fans and everyone touched by this tragedy still found a way to express their grief without disrespecting the family's wish. Mar kale waxaa cajiib noqotay waxa soo dhexgeliyay dhimashada fanaankan loo yaqaan Moonbin Astro qaar ka mid ah xidigaha kooxda fanaaniinta ee BTS waayo waxaan arkay dad leh Jungkook isnagaste Jimin isnagaste Jimin baa ku xiga halka ay weliba adugu adkaysanayaan in Jimin lagu xigsiiyo ama waqtigan la dilo bal eega xataa qofkan leh Jimin isnagaste please ereyga please waxaa loo isticmaalaa wax daruuri ah oo ay tahay gabi ahaanba in la sameeyo fadlan Jimin ku xijiya oo hala dilo yab Jimin talow aan isweydiinay muxuu ku sameeyay waxa xaqiiqa Jungkook wuxuu saaxiib dhow la ahaa Moonbin balse Jimin xataa wuxuu qof kasta isweydiinaya ilaa hadda xagee ay ka soo galiyay sheekadan ama gabi ahaanba ay dilkiisa kaga nabayaan waxa xasuus mudan showgii weynaa ay ku qabteen Busan xidigaha fanaaniinta kooxda BTS in marar badan loo muujiyay hanjabaado dil fanaaniinta kala Young Jungkook iyo ninka loo yaqaan waliba Jimin kuwaasoo gabi ahaanba loogu hanjabiyay haddii ay soo galaan xafladda in la dili doono wax dhibo ma uu gaadhin sababo la xidhiidha ammaankooda oo la adkeeyey feejignaan dheeraada balse haddana dhimashada Moonbin iyo kommentiyada qaabka darane waxay dib u abuureen mar kale cabsi taasoo markale keeni karta dil cusub si la mid ahna waxaa loo fahmay maadaama ay leeyihiin nagaste ereygani inuu gabi ahaanba caddaynayo iyagu inay hore u dileen ninka la yidhaahdo Moonbin Astro sidoo kalena ay rabaan inay ku xijiyaan qaar kale oo ka mid ah xidigaha loogu jecel yahay dhankaasi iyo K-pop. Through all these heartbreaking yet heartwarming posts and tributes, it's clear that Moonbin was genuinely loved and cherished by sida ay xaqiijisay shirkadooda Fantagio oo ah shirkadda uu hoos iman jiray amaba ka tirsanaa fanaankani iyo kooxdiisa Astro waxay tilmaamtay in aaska fanaanku noqonayo mid khaas ah oo ay ka soo qayb galaan kaliya xubno yar oo caan ah dadka u dhow gabi ahaanba si aan culays loo saarin familkiisa waxaana gabi ahaanba meesha laga saaray oo goobta lagu aasayo locationka waqtiga
iyo qaabka xataa gebi ahaanba u dhacayo aaska fanaanku. sidaasoo ay tahay balaayiin qof ayaa haddana isa soo safay gebi ahaanba albaabka hore ee shirkadda la yidhaahdo Fantagio, waxayna soo dhigeen ubaxyada tacsida iyaga oo la murugsan waayista fanaankooda Moonbin oo kadiisay ku ahayd gebi ahaanba qof kasta. midani kaliya kama ay dhacin South Korea, balse waxay ka sameeyeen taageerayaasha kala duwan ee fanaankani kuwaasoo ku kala sugan Mareykanka, Ingiriiska, France iyo waliba Aasiyada kale ee adduunka. waxaanay ugu duceeyeen una rajeeyeen fanaankooda wanaag oo dhan. mar kale waxaa jirta fanaaniin badan oo caan ah kuwaasoo ka muujiyay dhimashada fanaanka murugo iyo tacsi, taasoo ay gebi ahaanba ku muujinayaan sida ay uga naxeen ama gebi ahaanba ay uga xumaadeen inuu isdilo fanaan ama mid ka mida kuwii loogu jeclaa dhanka iyo K-pop. waxaanan odhan karnaa waxaa ka mid a dadka sida weyn ugu soo tacsiyey fanaankani amaba ka xumaaday dhimashadiisa RM ama team leaderka kooxda BTS. waxaanu soo geliyay bartiisa Instagram sawir muujinaya murugada iyo sida uga xun yahay, isagoo soo qaatay background madow ah oo aanay gebi ahaanba ku qornayn wax qoraal ah, taasoo ugu muujiyey niyad jabka iyo ka xumaanshaha mid ka mid ah xidigaha loogu jecel yahay waqtigan saacadda K-pop iyo dhimashada fanaanka Moonbin. weli way socotaa baadhistu, waana idinla socodsiin doonaa wixii ka soo baxa insha Allahu tacaala. balse daawade, adigu sidee ayaad u aragtaa sheekadan? maxaa meesha soo geliyay hanjabaadaha Jimin iyo Angkoga? ma odhan karnaa qofka soo qorayo commentskan xun ayaa gebi ahaanba qayb ka ah dilka amaba wuxuun koog? macquulse ma tahay managerkiisa oo la tilmaamay inuu dhowr jeer soo wacay ka hor inta aanu dhiman fanaankani, sidoo kalena mar kale si qaba u soo tabiyey gebi ahaanba dhimashadiisa oo aan naxdin badani ka muuqanin inuu gebi ahaanba ku lug yeelan karo sheekada dilka fanaankani Moonbin. fikirkaaga sidaad u aragtay sheekadan, muuqaalkaa jecesha inaan ku xijino intaba igu dhaaf qaybaha hoose ee comment sectionka, lana wadaag saaxiibada aadka u xiiseeya arrimahaasi K-pop. mahadsanid.